بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada kuwiin hebsom waan idin salaamay meel walba waa dunida ka joogtaan iyo xili walba oo idin tahay waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad dhammaantiina. asxaabta cusub asxaabta hore u joogtay dhammaantiina kusoo dhawaada qalbi furan. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin inaa idin dhahone marnaba kama daalayay kamana caajisayay man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah. mar walbana waxaan idin leeyahay dhoola cadeeya. dhoola cadeyntu waa sadaqo, sidoo kaleetana waa sunnadii nabigeena sallallahu calayhi wasalam. qalbigana saaxiib ayay la tahay, marka dhoola cadeyntu hala badiyo insha allah. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin. walaal hadaa nagu cusub tahay soo dhawow. hadaa wili subscribe noo saarinne fadlan subscribe noo saar, gambaleelka fura sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco. asxaabteyda qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa in aad videoyadeeda share garaysaan insha allah biidnillahi kariim. hamiga aan ka leeyahay channelka in uu gaaro ayaa rajeynayaa muddooyinka soo socdo hadduu ilaahay subxaana watacaala idmo. asxaabteyda qaaliga ah sidaa ogtihiin wax walba oo qurbaha yaalo ama meel walba hadeertaan la keena adduunka oo lagu soo hormariyey aad ayay u kiimika badan yihiin. marka waxaan jeclaystay barnaamijkaneeti video ka faa-iid in aan kusoo bandhigo waxyaabo badan oo faa-iido leh oo adiga gacantaada aad ku samaysan kartid oo caafimaadkaagana aad sidaaseti ku ilaalin kartid. ilaah ayaa wax ilaaliyo. marka maanta waxaa noo wadaa carfisada dharka lagu carfiyo ee dharkana kaaga dhigayso softy ama naacim ama waa jileec ee kaaga dhigaysaa. kuwa oo dharka lagu carfiyo oo suuq lagu gado aad ayay kiimikadooda u badan tahay, caafimaadkaagana ma u fiicno. dharkana markaa dhaqdid oo ku carfisid ilan jirkaaga haddana gelinaysa soomaan. marka waxaan rabaa waxyaabo aad iyo aad u fudud, aad u basid inaan ka samaysano carfisada dharka. hadeertaan waxaan gudagaleynaa sidaan u samaysan lahayn carfisadeeni. waxaa meeshaan ku haystaa waa lavender essential oil, waa ujeediina u maleynayaa. adiga caraf alla caraftaa rabtid ayaa isticmaali kartaa. meeshaan waxaa ku haystaa waa qal. sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa biyaha uwaxa waa dheeraad. waxaa rabaa caraf labada fiyoor markay isku darsamaan caraf oo nooc kale ah inay iisoo baxdo oo lavenderka keligiisa caraftiisa marebi. iyo meeshaan waxaa ka haystaa waa garsiliinka biyihiisa waaye, waana muhiim. waxa keliya aan uu noo sameynayo waa garsiliinkaaseti. iyo waxaa u baahan tahay asxaabteeda qaaliga ah biyo qandac ah oo haddana biyo lasoo karkariyey kadibna la qaboojiyey. aniga hadda keyga weli ma qaboobin. waxaan ku darayaa biyo kale oo qaboow ah sida markaaseti sida aan rabe uu igu noqdo. biyaha inaad karkarisid waxay ku fiican yihiin maadaama ay ku jirin maadadii raajinaysay. biyaha la karkariyey waxay ku haynaysaa ilaa bil adiga isticmaalka insha allah. hadda waxaa sameynayaa marka biyo qaboow ayaa soo shubanaya. marka 2 koob camal u baahanahay. waa ujeediin intaan hadda biyo qaboow waaye. biyihii karkaraya ayaan ku darayaa soo qandac noogu noqdo. waa kaas diyaar waaye. caagan ayaa haysta adiga wax alla waxaa haysatid. dhalo xitaa hadaa haysatid waa ku shubi kartaa. bismillah. waa kaas asxaabteeda qaaliga ah. haddana inti kale ayaa ku shubaya. waa kaas haddana haaf biyo qaboob ayaa kusoo daraya. saas waxaa ku haysanaa waa 2 koob oo biyo ah. 2 koob biyo waxaan ku dari doonaa koobkan oo qal waa koob yar. adiga koob weyn hadaa haysatid isticmaal haaf koob. hadda waxaan ku darayaa saa u fahamtiin bikeeriga ayaa kusoo shubayaa inta aan garsiliin ku dari doono insha allah. asxaabteeda waa kaay garsiliinka intaan ayuu ku egyahay. waa ujeediin adiga 2 qaando oo waaweyn camal waaye. waa kaas hadda waxaan ku darayaa marka xoogaa oo biyaha uwaxa ah. waa ujeediin koobkan haafkiis biyaha uwaxa. sidaa kuu sheegayaan biyaha fiyooraha oo rose water
ama rose water. marka haddii aadan haysanin waa iska dayn kartaa aniga dheeraad caraftane saliida nooca adiga aad rabtid ama carafteeda aad xiiseynaysid aad jeceshahay ayaa ka dhigan kartaa. lavenderka iyo ubaxa horey ayaan u baroobeeyey, aaday u caraf badan yihiin banaanka kuwa laga soo gaday. marka anakana gurigeena ayaa ku sameysanaynaa. asxaabteeda qaaliga waxaan jeclaa wax walbo inaad guryihiina ku sameysatiin sida caafimaadkeena aan uga fikirno. hadda waxaan ku darayaa ugu yaraan 20 dhibic oo saliidaneeti. markaas asxaabteeda 20 dhibic oo waxaan ku daray essential oil oo lavender ah. hadda maxaan sameynaynaa marka waan ruxeynaa. waakaas waa noo diyaar. waa ujeedina u maleynayaa intii caraftane kaali iska arag waa qaadaysaa kadibna waxaad ku shubeysaa furkaan ayaa ku cabiranaysaa mar walba markii aad dharkaaga dhaqanaysid waad ku shubeysaa. waa kaas asxaabteeda qaaliga ah labada caraf markay isku darsantay maasha allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo. stepkeeni koowaad sidan ayaa uga baxjeenayaa inaad ka heli doontiin hadduu ilaahay subxaana watacaala idmo carfisada dharka ku sameyso gurigaaga. bismillaah asxaabteyda qaaliga ah haddana waxaan galeynaa tibkeenii labaad ee barnaamijkeenii video ka faa-iid wuxuuna noqon doonaa tibkeenii labaad daawada aad ku nadiifsanaysid derbiga, armaajooyinka, miiska, meel walbo, muraayadaha, meel walbo aad ku nadiifsan kartid. hadeertaana noo sameynayaa insha allah. marka ugu horey meeshan waxaa ku haystaa waa qublin dhanaan oo aan soo hoolay. waxaan isku soo daray cagaar iyo jaallo, sidoo kale orange ayaa ku darsan kartaa hadaa rabtid. haddii aad helaysidna essential oil oo liimo dhanaan ah waad soo qaadan kartaa. aniga lavenderkan bisa ii yaalo oo carfisada ah marka waa isku darsanaya qubka iyo lavenderka ayaa isku darsanaya. meeshan waxaa ku haystaa waa half koob oo qal ah. sidoo kale meeshan waxaa ku haystaa shaambada alaabta lagu dhaqdo. sidoo kale waxaa haystaa caag iyo waxaan haystaa koob biyo oo karkarsan oo haddana la qaboojiyey sidaas ula socda. marka ugu horeeya waxaa soo qaadayaa qubkii liin dhanaanta. qasab maahan caagan camal inaa haysatid, caag walbo oo aad haysatid isticmaal sidii markaas adiga markaas rabtid. laakiin waxaa fiican caag la buufin karo inuu ku yaalo. aniga hadhow markii wixii ay isku milmaan biri camal adii waxaan sameynaa qubka hadaara waa iska miirayleen marmarka qaar geedka buufiska ma shaqeynayo haddaad u isticmaalin. waxaa ku dari doonaa 10 dhibic. toban dhibic oo lavenderkaas ku daray iyo qaando oo yiriis ah, 2 qaando oo qaandada shaaha camal adiga ayaan ku daray oo qubka liin dhanaanta. hadda waxaan ku darayaa qalka. waxaan ku darayaa sidoo kaleeto dhibic yar oo shaambe ah. kadib haddana waxaan ku darayaa ujeediin. haddana waa noo diyaar daawadeenii oo meel walbo noo nadiifinaysay. waxaa la dhahaa daawadaneeti u isticmaal meel walbo. asigana waa luxeysaa mar walba waa isticmaalaysidna waa luxeysaa. waxaa rajeynayaa asxaabteeda qaaliga ah inaad ka heli doontiin kana faa-iideysan doontiin. hadeertaana waxaan gudageli doonaa tibkeenii saddexaad insha allah. asxaabteeda qaaliga ah tibkeenii saddexaad ayaan bilaabeynaa. shukumaanka sida aad ugu tirtiri lahayd gurigaaga
oo weliba adigoo shukumaano badan isticmaalin. waa ujeedin shukumaanka anaga badanaa waxaan sameynaa sidaan ayaa ugu tirtirnaa, qalad waaye. waxaa sameynaysaa shukumaanka sidaas ayaa usoo qaadaysaa ama shayga markaas aad ku tirinaysid saasaa usoo laabee. markaas saas usoo laabtid haddana markii kale ayaa laabee. kadib waxaa sameynaysaa daawadii aan sameysanay hadaa arkaysa ayaa saas ugu buufsanee. wajada hadaa arkid derbiga ku buufin kartaa, kadibna waa ku tirtiree. waa tirtirtay way dhinacan way wasaqooda is leedahay, haddana dhinac kale haddana meel kala tage waa kusoo tirtiranay. haddana mar kale waxaa sameynay waa fure, waa ujeediin waa fure. haddana saana dhehe jaa 4 meelood ay ku nadiifisay. waxaa rajeynayaa iyadana inaad ka heli doontiin tibka ugu dambeeyay. haddii aad videoga ka faa'iid aad ka heshay barnaamijkiisa, fadlan waxaan kaa codsanaa inaad sii share gareysid in uu yahay barnaamij faa'iido badan leh insha Allah biidnillaahi kariim. maanta waxaan sameysanay oo wax walbo aad ku nadiifsan kartid, iyo sidoo kale waxaan sameysanay carfiso iyo sidii aan marada wax badan ama waqti badan usoo gaabsan lahayn ama inaan marooyin badan isticmaalno ee naga caawin lahayd. haddii aad videogan ka heshid fadlan like ii saar, haddaa ra'yi wadatid commentiga iigu dhaaf, la wadaag ehelkaaga iyo asxaabtaada. inta aan videogan video lamid ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaan Allah.